السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولالكين أحمد نور شاه عبد الله سيدا أركتان هذا مقالك قروح البضن ومقالدي بوكريستي وولي أنشوغو وهذا أركتان الكاس ودن ذاتك قريها يكو جيران أنا محوغا أرد بان سو سميي مركا وهذا أركتان بركي سومالي أيان قضاء مركا الحمد لله ودن كان لب كما جيرو كليا لوك داون بان نهي waxaa loo ogol yahay bas in qofka danta goonida lama ogolo waxaa la rabaa kaliya raashin ama medicine soo doonato laakiin aniga hadda waxaan sameeyay maadaama qorax ay tahay maanta waxaa la ogol yahay in aad maalinka Sundayda ama Saturdayda aad orod dhisato maadaama meelihii kaarka aan ku galaynay ee gymka social distancing waxaan leeyahay darteed loo mamnuucay marka waa la ogol yahay in la soo ordo jogging la sameeyo marka alxamdulillah 15 kilomitir ayaan soo ordayay hadda waxa dadka waxa la ogol yahay baaskiil inay qaataan ama lugahooda ay ku ordaan dadka la qabto oo ku xadgudba lockdown-ka waxa laga qaadayaa 6,000 oo euro subhanallah ma bixin karaba shalay waxay u dhacday anoo ordaya wadadii aan ku ordayay inay booliisku jidgooyo dhigtaan marka nin iga horeeyay baa arkay kii baa soo laabtay markuu soo laabtay anana dib u sii baxay waxaan ninkaas maadaama uu soo noqday maxaa ku yaala adiga marka waxa weeyaan lockdown-kii baa wallahi ina saameeyay aniga si gaar ah ayuu runtii ii saameeyay sababtana waxa weeye maadaama Norway aan joogin lacagta igu baxaysa ayaa kharash badan maadaama hotel aan deganahay bangiyaduna xilliyadana kale way ka faa'iideystaan way ku yar darayaan مثلا ماشي 2 كرون iyo 15 meeshii ka ahayd 2 كرون iyo 68 baa laga qaaday marka waad dareemi kartaan maalin walba dharbaxada u dhacaysa laakiin dib ma laha waan ka soo kabanaynaa haddii Ilaahay yiraahdo guud ahaan caalamka haddaan ka warbixiyo dalka Mareykanka ayaa ugu badan coronavirus-ka wuxuu gaaray 130,000 oo uu saameeyay 2,000 ayaa la leeyahay marka haddii aan xaggan iyo wadanka Talyaaniga oo aad la socotaan wadanka Talyaaniga waa 12,000 ayaa la leeyahay Spain waa 6,000 Iran waa 1,500 meelaha 3,500 waa Hawaii China waxaad moodaa hadda Mareykanka waxay lahaayeen hadda markaan ka imaaday CNN iyo BBC World News labadaba waxay yiraahdeen epic center ayay noqonaysaa meesha ubuucda ah oo cudurku uu aad u saameyn doona ayay noqonaysaa bay leeyihiin marka horta cuduradan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa keenaya iyo inay khiyaamo iyo shirqool ay caalamku isku sameynayaan inay tahayna waa dhici kartaa si walba ay ahaato waa qadartii Rabbi oo la joojin lahayd ayaan anagu aaminsanahay waan maqlaayay Mareykanka iyo China waxay isku tuurtuurayaan idinka cudurka keenay iyo idinka keenay laakiin anagu waxaan leenahay haddii cudur uu yahayna Ilaahay baa keenay haddii chemical aad isku leynaysaan oo muslimka idinku dhexnool iyo idinka baad ku dhamaanaysaana haddii idinka idin taala Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan leenahay muslimiinta iyo gaalada labaduba ha ka samata bixiyo sababtay tahay dhaqaalihii baa degay qof walba ayay saameysay anu hadda waan bixi lahaa waxaan aadi lahaa Turkiga labada week ka hor ayaa qorshahaygu uu ahaa waan xanibnay waxa kale oo igu dhacday tigidkii Norway aan ku noqon lahaa in isagana uu kansalmay coronavirus darteed meel loo baxay markaa ma jirto marka waxaan leenahay fafiru ila Allah xagga alle ha loo yaaco meel kale loo cararay ma jiro wadamadii xuduudihii baa xireen diyaaradihii baa la fariisay aad maqlayseen warbixinada socda Australia iyo waxa la soo saaray iyo Dubai iyo meelihii ugu maaragtay mashquulka badnaa London iyo New York iyo waxa la soo saaray garoomadii diyaaradaha oo zero ah wax galaya iyo wax ka baxay midna aysan jirin
diyaaradii waxaa la baarkeerin baa la geliyay sababtay tahay diyaaradahanu inta badan hawaday ku jireen 8 saacadood ee hawada ay ku jirto raanweygii marka wuxuu noqonayaa diyaar mid kala soo galaysa mid baa degaysa mid baa kacaysa marka adduunku saas uu ahaa waxaan la yaabanaa hadda markii aan Soomaaliya ka soo laabtay qadar baan raacay meel la kala maro ma lahayn walibana saa ay tahay iyada oo habeen bar ay tahay baan ku soo aadnay marka waxay noqonaysaa inaad aad raadiso diyaaradaadii marka hadda waxay sameeyeen hawl fudeydin tareemo waxay sameeyeen terminaalada ku geynaya oo maaragtay free of charge ah lacag la'aan wuxuu ka qaadayaa from 1 to 500 macnihi number ah marka alxamdulillah anu 5 daqiiqo ugu qaadatay inaan helo tareenkaygii diyaaradii transit-kaydna sidii baan ku soo raacay 8 subaxna waxaan taagnaa meesha la yiraahdo Oslo Norway marka runtii bal hala ducaysto waxaan leenahay waxa weeyaan ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إلهي سبحانه وتعالى وحوليه هي dhulkii waxaa camimay oo gaaray fasaadkii dadka cirka dhulka badda meel walba xumaan baa lagu sameeyey ilaahay baa lala dagaalamay subxaanahu wa tacaala marka bimaa kasabat aydi nnaas haddaad maqashaan waa waxa aan anuu shaqaystay aduu aad shaqaysatay ayaa ummadda lagu ciqaabayaa liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun si aad u soo noqotaan baa la yidhi welibana qayb ka mid ah ayaa laydinku ciqaabayaa baa la yidhi xumaanta aad samaysateen marka ilaahay in loo toobad keenaa ila quman meel walba oo aan fiirinnay aayadaha qur'aanka iyo axaadiista waxay leeyihiin waa in la soo noqdaa xaggee loo soo noqonayaa ilaahay baa loo soo noqonayaa subxaanahu wa tacaala xumaanta lagu jiraa la iska daynayaa ceebta hadda ugu daran dadka Soomaaliyeed masaajid baa la isku haystaa marka la yiraahdo maxaa kugu soo dhacaya Tawfiiq Islamic Center ayaa macnaheedu very bad example ugu filan yani waxa la leeyahay laba qabiil baa isba haysatay qabiil baa laga cayriyay waxa weeyaan masaajidkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa waxa weeyaan dad qabaa'il ah ay la wareegeen oo diinna xataa aan aqoonin qaarkood inay juhalo yihiin aan aaminsanahay qaarkood macnaheedu waxba laa yaqra walaa yaktub kulluhum ama bacduhum marka ay arrimaha noocaasa timaado waxa weeyaan liyudiiqahum bacd alladii camiluu lacallahum yarjicuun bay noqonaysaa oo waxa weeyaan waxay noqonaysaa in wixii aynu inagu kasbannay laynagu ciqaabo iyadoo hadda ujeeddaduna ay tahay in hunguri iyo lacag la helo waxaad dadkaa dhan aad u soocaysaa ood masaajidka uga cayrisay waa inaad danahaaga gaarka iyo calooshaada u shaqaysata waxaan ognahay Tawfiiq Islamic Center in maaragtay guryo laga tabcaday hoteelo laga samaystay East Africa guryo la jabinayo hebel iyo hebla dad noocaas oo isku wada xiran oo aynu ognahay ninka la Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun inuu ka yahay iyo Cali Maxamed Saalax iyo dad noocaas oo calooshada u shaqaystayaala oo fidnada hadda adduunka ka socota xataa qaarkood la dhihi kara inay sabab u yihiin sababtay tahay masaajid ilaahay maxaynu u naqaanaa walaalayaal waxaynu u naqaanaa wa ana almasaajida lilah falaa tadcu maca allahi axada maxaaba keenayba qabiil hebel iyo habar xaabuush iyo habar magaadi iyo habar jecel iyo habar gidir iyo maxaa meeshaan keenayba wa ana almasaajida lilah falaa tadcu maca allahi axadan baaba la yiriye maxay tahay waxaano habar xaabuush iyo waxa isdaba yaacaya maxay yihiin subxaan allah war ilaahay loo toobad keenaan leenahay oo maaragtay waqtigiibaa dhow maaragtay qiyaam saaca la degan yahay waayo rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri markay qiyaamadu soo dhawaato wa yaksuru alharju harju huwa alqatl ayaa la yiri luqada carabiga saasay ku macnaayaan waxay leeyihiin harjigu waa qatl waa dad fara badan oo cashwaay loo leynayo sidaan arkaynay Syria iyo meel walba dad baa macnaa white phosphor lala dhacay oo la leeyahay adduunkay muxaram ka tahay I don't know waxa weeyaan Mareykanku wuxuu nagu isticmaalayaa isdiwaajiya waa la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan waxa hadda la leeyahay
cudurradan hadda faafaya la sheegaya hubka kiimikaalka haraadiga ka soo haray weeye oo dadka bini'aadamka lagu yaraynayo marka waxaan leenahay maaragtay hala toobad keeno ilaahay ha loo soo noqdo subxaanahu wa tacaala dharka soomaaliyana ha la soo wada qaato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa walaalkiin axmed nuur sheekh cabdulaahi magaalada bukaresti caasimadda romania